بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ملك استوى kuna soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka imanaya stuudiyihiisa koowaad ee magaalada Hargeysa qodobada wararka ugu muhiimsan ee aanu diyahaynana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa cafis u fidiyay mas'uuliyiinta wargeyska Hubaal isagoo xayiraadii ka qaaday wargeyskaasi wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa kula la yeeshay shirkadaha diyaaradaha ka hawlgala dalka Soomaaliland kaasi oo lagaga hadlayay sidii garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay si dhaqso ah diyaaradahaasi ay uga hawlgali lahaayeen oo ay soo fadhiisan lahaayeen mas'uuliyiinta hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo kuwa garsoorka ayaa faahfaahin ka bixiyay maxaabiista laga soo daayay xabsiga dhexe ee Mandheera intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu muhiimsan haatana waxa uu diyaar garowdaan warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliland ayaa cafis u fidiyay mas'uuliyiinta wargeyska Hubaal isagoo oo xayiraadii ka qaaday wargeyskaasi warkaasi waxay noo faahfaahinaya Maxamed Ciise Aadan war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo uu ku saxiixayay afayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleebaan Dhuxul ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xeer madaxweyne cafis ugu fidiyay wargeyska Hubaal iyo mas'uuliyiintiisa wargeyska oo hore ay maxkamadii u saartay xayiraad madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad faqradiisa 5aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 194aad ee xeerka ciqaabta guud markuu arkay xukunka maxkamadda gobolka Hargeysa ee 3 bisha 7 2013 markii uu tixgeliyay codsiga cafiska ah ee ay soo gudbiyeen guddiga suxufiyiinta Soomaaliland iyo xukunsanayaashuba waxa uu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta cafis gaar ahaaneed u fidiyo xukunsanayaasha kala ah maxamed axmed jaamac calooley oo ay maxkamaddu ku xukuntay 1 sano oo xadhig ah ciqaabeed ah iyo 2 milyan oo Soomaaliland shilling oo ganax lacageed ah xasan xuseen cabdilaahi keef oo ay maxkamaddu ku xukuntay 2 sano oo xadhig ah iyo 2 milyan oo Soomaaliland shilling ah oo ganax lacageed ah iyo xayiraadii oo laga qaado wargeyska Hubaal wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland ayaa kula la yeeshay shirkadaha diyaaradaha ee ka hawlgala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo lagaga hadlayay sidii ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ay u soo fadhiisan lahaayeen diyaaradahaasi sida ugu dhaqsiyaha badan warkaasina waxay noo faahfaahinaya wariye Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur Almis kulanka laba geesoodka ay u dhaxeeyay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada iyo wakiilada shirkadaha duulimaadka ka sameeya madaarada Soomaaliland ayaa ka dhacay geegada diyaaradaha Cigaal International Airport kulankaas oo mid albaabada u xirnaayeen ayaa markuu soo gabagabay waxa TV-ga qaranka Soomaaliland ugu waramay afayeenka guddida diyaaradaha Soomaaliland Muniir Abusite ujeedada kulankan u qabsoomay wax iyadoo laga wada hadlayo hawlihii madaarka Hargeysa iyo duulimaadidii shirkaasina waxa nagu weheliyay oo hormuudka ahaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi waxaana falanqayn dheer iyo hawlaha sida u socdaan markii aanu isla eegnay waxa la isla gartay in maadaama airportka la furay dhawaan bisha 9 bishii 17keedii oo ahaa maadaraad maalintii Sabtidii in ay shirkaduhu khibradoodii iyo pilotiskoodii ay soo diraan oo ay u soo diraan hawlwadeenadii halkan hawsha ka waday wasaaradda iyo consultantskii constructionka maadaama constructionka dhamaaday loo gudbayo phase-kii labaad oo ah certificate-kii iyo diyaaradihii iyo nidaamkii kale ee u dhinaa ee xagga diyaaradaha iyo waxaasi hawsheedii la galo marka waxaana la isla gartay in la dedejiyo khibradaasi ay si dhaqsaa u yimaadaan oo si loogu gogol xaadho inay loogu gogol xaadho bilowgii duulimaadyada daasadaasi waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhammaystiranto ilaa 3 week ugu badnaan haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaanu macaamiisheeda sharafta leh iyo dadweynaha socdaalkaba aanu aad uga raali gelinaynaa intaa yara dib u dhacay waxaananu u sheegaynaa in
duulimaadyadu marka ay bilaabmaan aanu dhaqso ugu soo sheegi doono ee halkan aanu duulimaadyada ka bilowno laakiin iminka ay duulimaadyadu sidoodii hore ahaanayaan oo ay berbere ka baxayaan waad mahadsantihiin سعيد مهدي إلي أقاسمها واحدة دولستي هودا وسارة دولستي هودا يا شرحات كبحيي سببها كان يهكت ككوي من دولي ماضية ديارتها كسو دقلها أما وكدو في لها مدارك عالمي عقال انترناشنال إدوان وحرق كشري مدحوينها سومالان وحنويري أيا ما أنت سيداو صاحبك منير شاقي شيروينو أنو آذوك فلنقينينو إن محانكو هذا سيدا إيربورك أنو ودما يستير لهين رميسة oonu isla garanay qodobadu Muniiridin sheegay ayaa waxaanu dadweynaha ka cudur daaranaynaa dib u dhac yar ee aanu ku dhameyn doono hadii la yiraahdo arrinka ilaa muddo ugu badnaan 3 wiiga sida uu saaxiibkay Muniir sheegay insha Allah marka dadweynaha iyo qurba joogaba waxaanu leenahay hadii alla yiraahdo muddadaas markay dhamaato in halkan si raaxo looga soo degi doonaan ama uga dhoofi karaan مسؤوليته هيئتها حقوق الإنسان كيكون حق صار كصومالي لأن يفافهين كبيحية محابيست لغسو داية يحبسي قدحة منديرا وركانا وحينوها يا عبد العزيز ميراح maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodijeex ayaa xorriyadoodii u soo celisay 7 maxbuus oo muddo dhaaf ugu xidhnaa jeelka Mandheera kadib markii ay booqdeen jeelkaasi xafiiska xuquuqul insaanka qaranka oo u gudbiyay maxkamadda racfaanka dadkaasi oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta xeer ilaalinta iyo xafiiska qareennada Soomaaliland kadib markii dadkaasi xorriyadooda loo soo celiyay hadal ay halkaasi ka jeediyeen gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Cabdirashiid Maxamuud Durraan iyo gudoomiye ku-xigeenka xafiiska xuquuqul insaanka qaranka Maxamuud Garaad ayaa sheegay inay yihiin talaabooyinka la doonayo in lagu sugo cadaaladda laguna dardargeliyo marka waxa waajib nagu ahayd inaan hawsheeda gudano waxa nagu soo wargeliyay oo noo soo sheegay gudida xuquuqul insaanka si loo hubiyo waxa soo waxa weeye si loo sugo cadaaladda shacabka cadaaladooda sidii loo ilaalin lahaa baamsa kaashadayna geesta kalena gudoomiyaha xafiiska qareennada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socotay xafiiska xeer ilaalinta ayaa iyaguna waxa ay tilmaameen in ay ku faraxsan yihiin diyaarna u yihiin inay ka daba yimaadaan cid kasta oo ay dhamaatay muddadii xukunkooda xorriyadoodana si xalaal loogu soo celiyo magaalada Barbarana waxa lagu soo dhaweeyay wafdi isugu jira cuqaal iyo waxgarad kuwaasi oo ka soo kicitimay bariga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa warkaasi magaalada Barbaran nooga soo diray Mukhtaar Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada Barbara maarayaha dekada Barbara maamulka iyo mas'uuliyiinta degmada Sheekh ayaa maanta soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo isugu jirta salaadiin cuqaalo garaado isimo iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada bari ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu hogaaminayay garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo ka mid ahaa garaadada waaweyn ee gobolada bari ee Soomaaliland wafdigan oo habeenkii xalay ahaa ku sugnaa xarunta gobolka Togdheer ee Burco ayaa saaka u soo kicitimay dhinaca gobolka Saaxil waxaana wafdigaasi xadka u dhaxeeya gobolada Saaxil iyo Togdheer kula soo wareegay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara iyo sidoo kale mas'uuliyiinta degmada Sheekh ka hor intii aanay wafdigaasi u soo kicitimin dhinaca xarunta gobolka Saaxil ee Barbara ayaa halkaasi hadallo soo dhaweynah ay uga soo jeediyeen wafdigaasi mas'uuliyiintii halkaasi kula kala wareegayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji ayaa hadallo soo dhaweynay wafdigaasi u soo jeediyay isla markaana si rasmi ah ugu soo wareejiyay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi duqa degmada Barbara Cabshukuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka oo iyaguna wafdigaasi kaga hortagay jidka u dhaxeeya gobolka Saaxil iyo Togdheer oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Indheendo iyo sidoo kale Salebaan Cali Koore halka waxaan ku soo dhaweynay oo laba habeen loo joogay gobolka Togdheer garaad Cabdilaahi iyo wafdi ballaaran oo cuqaashi madii waxgaradkii nabadoonkii dhammaan ay wada dhamaayeen oo runtii wafdi aad ballaaran oo ka koobnaa 60 xubnood waxaan kan barsaab ku wareejinayaa wafdiga ballaaran ee qiimaha badan soo dhawaada gobolka Saaxil aad baan u jecelahay waan u baahnayn oo aan soo dhaweynaa gobolka Saaxil degmada Barbara garaad Cabdilaahi iyo wafdiga hogaaminaya waxaan leenahay soo dhawaad garaad gurigaagii iyagana waxaan u sheegaynaa in dawladdiina diyaar u ahayd sida barasaabada iyo maayaradu meel walba ku soo dhaweynayaan in loo soo dhaweyn doono inaanu halkan isugu nimaadno sharaf iyo karaamo ay noo tahay waxaanu u aragnaa tallaabo ay xukuumaddu xaqii saxda ah u qaatay deegaanada oo aanu muddo badan filaynay in laga gaabiyo
never too late waxaanu qabnaa in maanta wax badan la qabtay wax badan oo badan in dib loo qabtaana way habboon tahay garaad cabdilaahi maxamed guuleed oo isaguna ahaa hogaamiyihii odayaashaasi kala duwan ay isugu jiray salaadiinta iyo cuqaasha ku dhawaa ilaa 60 qof ayaa waxa uu tilmaamay in ay ku faraxsan yihiin inay yimaadaan qaar ka mid ah gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo horena uga yimi gobollo ka mid ah Soomaaliland dhaweynta ayna soo dhaweeyeen iyo qaabilaadda ayna qaabileen iyagana aad iyo aad baan insha Allah ta'ala uga mahadnaqaynaa uguna faraxsanahay wixii kale insha Allah ta'ala inta dheer waqtigeeda ay ahaan doontaa intaasi kadib waftigaasi waxa uu soo kici timeen dhinaca xarunta gobolka Saaxil ee Berbera oo halkaasi qada sharaf lagu sameeyay hotel Mansour ee magaalada Berbera kadib qada sharaftaasi ayaa sidoo kalena waxa magaalada Berbera waftigaasi ugu diyaarahay inay si weyn u soo dhaweeyaan mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maryaha dekada Berbera iyo sidoo kale Soomaaliyiin iyo cuqaal kala duwan oo iyaguna ka soo jeeda gobolka Saaxil maryaha dekada Berbera injineer Cali Umar Maxamed Cali Horhor ayaa waftigaasi u soo jeediyay inay ku soo dhawaadaan dalkooda hooyo isla markaasina ay wax la qabsadaan shacabka Soomaaliland مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرنك سوماليلاند بربرا كل لغا hadlayay sidii dadka la haybsooca ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa warka waxa inoo haya Cabdiraxmaan Muuse kulankan ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan xubno ka mid ah dadka laga tirada badan yahay salaadiin axsaabta qaranka iyo qaybaha bulshada kala duwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwe Shukri Xareer Ismaaciil oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa ka warantay ahmiyadda dimuqraadiyadda iyo tartanku u leeyahay bulshada taasi oo sheegtay in xukuumad ahaan ay taageersan yihiin horumarka bulshada guusha iyo guuldaradana ay tahay mid tartanku iska leeyahay waxaana u soo jeedisay ka qaybgalayaasha doorashadii la soo dhaafay in ay sii wadaan hamigooda gudoomiyaha xisbiga oo Injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna ka hadlay kulankaasi ayaa ka warramay muhiimadda arrintani ay leedahay in laga hadlo xisbiyahaana ay ka qayb qaadanayaan diyaarna u yihiin arrintaasi Shiine Maxamed Idriis oo isaguna ka socday xisbiga wadani ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu soo dhaweeyay kulanka noocan ah oo uu sheegay in uu yahay mid muhiim ah agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta mudane Faysal Cali Sheekh ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda kulankan u leeyahay bulshada kaasi oo sheegay in xukuumaddu ay hil iyo hooba la garab taagan tahay gudoomiyaha ururka Fasanwo Nimco Eid Salano oo ka hadashay kulankaasi ayaa tilmaantay in ay muddo dheer soo wadeen hawshaasi iyo sidii dadkani ay u heli lahaayeen xaq ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda waxaana ay taabatay caqabadihii ka hor yimid iyo sida looga bixi karo mushkiladahaasi iyadoo oo sheegtay in ay daraasadani muujinayso in ay dumarka iyo dadka laga tirada badan yahayba doorashada ku soo bixi karin balse loo baahan yahay in kooto loo xidho Suldaan Naasir Suldaan Cabdi iyo Boqor Axmed Iimaan iyo Yuusuf Kirix Cawad oo kulankaasi ka hadlay ayaa halkaasi ka jeediyay hadallo la xidhiidha kulankaasi dhinaca kalena kulan laga hadlayay sidii gobolka Awda loo horumarin lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Boorame ee gobolkaasi waxa magaalada Boorame warkaasi nooga soo dirtay Hodan Caafi kulan ballaaran oo ka qayb qaadanayeen gudida midnimada beelaha gobolada Awdal iyo Salal iyo Gabiley Daga oo maanta lagaga dhawaaqay hotelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa la sheegay inuu yahay golo dhaqameed oo beelahaasi yeelanayaan gudoomiyaha gudidaasi Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal ayaa faahfaahiyay ujeedadaasi xukuumadda Soomaaliland maanta xog haysan sidii hore baan uga naqaanay waxayna ka rajaynaa in insha Allah loo garab gasho nala qabataan ka rajaynaa waan ka codsanaa waxa loo guuriyay waxa weey waa horumar waxa loo guuriyay oo wada qabsi sidoo kale Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo Suldaan Abibakar Cilmi Wabar oo munaasabadaasi ka hadlay waxay sheegeen gudidaasi waxay u taagan tahay kana shaqaynaysaa koob danaha guud ee beelaha Samaroon meel kastoo ay joogaanba labo gudidani waxay adkaynaysaa xoogana saaraysa ilaalinta nabadgelyada dalka Soomaaliland gaar ahaan deegaanada ay beerahani degaan saddex gudidan waxa kale oo ay ka shaqaynaysaa horumarinta
dhinacyada dhaqaalaha xagga waxbarashada caafimaadka iyo sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaana daba idinaynaga rabnaa aada iyo aadna idinku buurinaynaa inaynu sidii beri horeba la odhan jiray halka kan hadal yar iyo hawl badan wixii la yidhi aynu ku dhaqaaqno insha allah waxaan fariin u dirayaa qurba joogga waxaan leeyahay warkaa la dhameeyey waa midnimo waa wadajir waa gacan isqabsi waa hadan caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama guud ahaan baaqyada qiimaha qadarinta sharafta iyo xushmadaba nagu mudan oo waad ku mahadsantahay sida fiican oo la socoteen wararka telefishinka qaranka Soomaaliland wararkiina waa naga intaasi habeennimadan caawana waxay idila socotiinaysaa anigoo Raxma Abuureera wararkan oo kale intaan ku kulmayna waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh